Linda waxa ay ku jirtay xaaladihii ugu dambeeyay ee foosha, markaasi andaroodyada ku wareegsan waxa ay la yaabanaayeen sida ay arrintani macquulka ku tahay, balse waxay ogaayeen haddii ay wax ka qaban waayaan in markaasi ilmaha yarka ee calooshooda ku jira uu dhiman doono, markaasna Linda ayadoo uur leh sidoo kalena ay dhiman doonto. In laga soo saaro dhalada uma aysan fududeen qaabka ay dadku u maleynayaan, sababtoo ah qaabka loo sameeyay stasiska waxay ahayd in si wada jira markaasi loo wada furo, sidaas darteed haddii la furo dhalada Linda dadkoo dhan ayaa ku wada furmayaan. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay furaan, markaasna agagaarkeeda ayay ku soo wareegsadeen ayadoo markaasi dhaladii isfurayso, waxayna isku diyaarinayeen in markaasi stasiska dhexdeeda ay ka soo saaraan. Markii dhaladii Linda la furay, waxaa ku xigay inay furmaan dhalooyinkii ay ku jireen Stephen Kushner, sidoo kalena Gloria Aquino, waxaana ku xigtay Diana Larson, ugu dambeynna Dominic Franklin. Waxaa ugu dambeeyay Dan Blacker, kaasoo markaasi aysan ka muuqan saameynta kuwa kale, isla markiiba uu fariistay. Waxay ahayd xilligii uu qorshihiisa ku dhaqaaqi lahaa oo markaasba uu gabi ahaan la wareegi lahaa spaceshipka. Roboodyadii oo aad ula yaabay sida degdega u soo fariistay ma aysan awoodin xaaladiisa inay fiiriyaan, sababtoo ah dhammaantood waxay la yaabanaayeen xaaladda Linda maadaama ay hadda ogaadeen inaysan uurba lahayn. Dan markaasi waxa uu soo diyaariyay transport yaalay qolka dhinaciisa, markaasna waxa uu saaray mid kasta oo uu la kulmay, kuwaasoo sida muuqatay weli ku jiray riyooyinkii. Stephen wuxuu u maleynayay inuu saaran yahay gaari isagoo Dan la saaran yahay, kana soo baxsanayay dilkii uu sameeyay. Gloria waxay u malaysay inay indhoolo ku noqotay iftiinkii ka soo gaaray nuclear-ka, markaasna isbitaalka loola cararayo. Diana waxay kor u akrinaysay maabkii ku baxsan lahayd ayadoo markaasi maraysa wadada hoos martay isbitaalka. Dominicna wuxuu u maleynayay in markaasi laga soo badbaadinay keenta oo Blacker soo badbaadiyay, kadibna uu u wada meel amniya. Roboodyadii waxay isku dayeen inay la hadlaan Blacker, laakiin wuu iska indhatiray, markaasi maadaama aysan awoodin inay faraha la galaan maadaama uu programkooda isugu jirin, kaliya hata waxay shideen alaarantii. Dan wuxuu weydiiyey Linda wadadii loo mari lahaa buundada, markaas iyadoo u maleynaysa inay akhrinayso maabkii isbitaalka looga bixi lahaa ayay mid ugu sheegtay meeshii la mari lahaa. Diana kombanigeeda ayuu ahaa midka loo xilsaaray inay markaasi dhisaan Soteria, maadaama ay ka warqabtay projectka markii la dhisayay, waxay mid u egeed meel kasta oo la maro ay ku jiraan hallway-ga, sidoo kalena meelaha aan la ogolaan iyo meelaha qarsoonba. Markay u dhawaadeen meeshii u socdeen ayaa waxaa soo baxay robot aad u weyn, kaasoo markaasi hor istaagay oo gacanta ku taagay isagoo u sheegayay inay istaagaan, laakiin iyagu ma aysan qorsheynayn inay istaagaan. Blacker markaas wuxuu bilaabay inuu ku qayliyo Diana isagoo weydiinaya meel kale oo ay ka baxaan, laakiin iyadoo aan ka warqabin khatarta ayay waxay u sheegtay inay wadada toos u raacaan. Waqti aysan ku istaagin iyagoon haysan ayay si toos aaladii waxay u gashay robotkii, taasoo markaasi laba u kala jirtay. Sida lagu programiyana wuxuu bilaabay inuu xabadiisa furo oo waxay garabka kaga dhacday Gloria. Blacker sida uu qorsheeyayna wax uma aysan soconaynin. Waxayba ahayd nasiib maadaama ay Gloria weli nooshahay, weli waxay ku jirtay stasiska, waxayna aaminsan tahay inay indhala adahay. Markaasi si tartiiba ayuu bilaabay gaariga inuu darbiga ku leexdo, taasoo sababtay biraha darbiga ku yaala mid ka mid ah inay hal mar madaxeedii ka jarto. Aaladii kontaroolka ayay ka baxday, markaasna Stephen si xoog ayuu bareeg u qabtay, darbiga ayuuna geliyay dhammaantood. Markaasi aaladii si xun ayay u jabtay, Gloriana waa ay dhimatay, marnaba qorshihiisa uma aysan soconayn Blacker. Diana oo weli aaminsan isbitaalka hoostiisa inay marayaan ayaa waxay u sheegtay Blacker inay sii socdaan, maadaama ay hubto haddii ay sii istaagaan in la qaban doono. Waxay ku qasbanayeen inay lugta ku sii socdaan. Blacker wuxuu u sheegay Stephen inuu soo qaado qorigii watay robotkii burburay. Stephen wuu yeelay isagoo weli u maleynaya inay markaasi marayaan wada cilaa, kuwaasoo markaasi ay shil ku galeen kuna qasban yihiin inay gaarigii meesha kaga tagaan. Waxay u dhaqaaqeen dhinacii keenta, markaasna Blacker wuxuu u sheegay Stephen inuu indhihiisa ku hayo wadada, wixii dhaqaaqana uu xabadda ku dhufto. Ma uusan ka helin Blacker marnaba inuu cabsi dareemo. daqiiqado yar bay sii socdeen ilaa ay ka soo gaareen guri yara oo markaasi nalalka u shidan yihiin. Waa kana ayay dhahday Diana. Ugu dambeyn waxay soo gaareen buundadii, halka dhibaato jirta waxay tahay in ay furaan maadaama albaabka birta uu si xoog u xiran yahay. Stephen wuxuu dhahay waa inaan daaqada jabinaa maadaama albaabku sayd u culus yahay. Waa caadi ayuu dhahay markaasi Blacker, waxaan wataa furihii.
kadibna waxa uu soo qaaday madaxii Gloria ee go'naa. Iskaanka ayaa la mariyay, gadaal ayuuna u baxay. Albaabadii cuslaa ayaa waxay bilaabeen markaasi inay isfuraan. Markii ay bilaabeen inay gudaha galaan, ayaa waxaa yeertay sharqan aad u culus oo gadaashooda ah, kuwaasoo meeshooda ku istaajisay. Waa booliiska ayuu dhahay Steven, kadibna wuxuu bilaabay inuu xabadeeyo. Hal xabana markaasi kuma aysan dhicin wuxuu xabadeynayay, asaga ayay markaasi xabadihii ku dhaceen. Blaka oo isaguba ay xabadii ku dhacday ayaa markaasi wuxuu bilaabay robotka madaxiisa inuu kaga dhifto, kaasoo qarxiyay. Kadibna ka gadaal ayuu u baxay oo albaabkii cuslaa ayaa waxa uu bilaabay inuu si tartiib isku xiro. Blaka wuxuu markaasi u sheegay Dominic inuu ku fariisto kursiga, wuxuuna markaasi u sheegay inay dib ugu laaban doonaan gurigii. Dominic wuxuu ku fariistay diyaaradda dhexdeeda, kadibna markaasi wuxuu bilaabay inuu kor u kiciyo. Dominic ayaa markaasi kontaroolkii la wareegay, wuxuuna bilaabay inuu si tartiib ah spaceshipka u leexiyo, isagoo u jeedinaya dhinacii dhulka. Blaka wuxuu bilaabay inuu daawado cirka quruxdiisa, isagoo markaasi rajeynaya 1 sano wax ka yar inay ku gaari doonaan dhulka, isagoo markaasi raba inuu soo badbaadiyo dadkii uu jeclaa. Xoogaa kadib wuxuu maqlay qaylo gadaashiisa ka yeerisa. Markii uu soo jeestayna wuxuu arkay Diana inay riyadii ka soo kacday, markaasna waxaa meesha ka socday aragtay oo ay qaylinayso. Xagee ayaan joognaa ayay ku qaylisay Diana, sidee ayaan xagan ku soo gaaray? Blaka ayaa si degan uga jawaabay, Soteria ayaan saaranahay, waxaan dib ugu laabanaynaa dhulka. Diana oo yaaban ayaa soo eegtay, laakiin sidee? Daqiiqado ka hor adiga ayaan kula socday anoo ka soo baxsanay isbitaalka waalida, waxayna u ekayd mid run ah. Wuxuu bilaabay inuu u sharxo. Markii la igu qasbay inaan galo stasiska oo dhalada la igashay, waxaan gartay markaas inaan qof kasta maskaxdiisa akhrin karo oo aan riyooyinkiina isku qasi karo. Sidoo kalena waxaan awooday inaan hakan ku sameeyo systemka, taasoo u ekaysiinaysa mid ka mid ah dadka meesha ku jira inay uur leedahay, taasoo ku kalifaysa robootyada inay furaan dhalooyinkeena. Laakiin sabab ayay weydiisay Diana, ayadoo xanaaqeedu ka sii darayo, sababtoo waxay dareentay in markaas uu Blaka ku ciyaaray jaaniska kaliya ay dadkani lahaayeen si uga baxsadaan cudurkii baabi'iyay dhulka. Ma dareesantahay waxa aad samaysay ayay dhahday iyadoo xanaaqsan. Waan dareensanahay waxaan sameeyay ayuu dhahay Blaka, adiga sidaadoo kale ma rabo inaan gurigaygii iyo balaayiin dada gadaal uga soo tago, adiga waxaa tahay qof aad u xun. Wax aniga igu saabsan oo aad ka warqabto ma jiro ayay dhahday. Taa beddelkeed weeye ayuu ugu jawaabay Blaka, waan ogahay wax walba xun oo aad markaasi samaysay, adiga iyo qof kasta oo saaray spaceshipkan waxaa tihiin dadka ugu xunxun bini'aadanimada oo dhan, mana mudnidin inaad noqotaan dadka kaliya oo badbaadaya. Haddaba isku doon ayaan saaranahay ayay dhahday, iyadoo markaasi farta ku taagaysa dhaawaciisa. Si xun ayaad u dhaawacantay, sida u eg tahayna safarkan dheer ma badbaadi doontid. Arrintaasi waan ka shakisanahay ayuu ugu jawaabay, si fiican u fiiri. Diana oo aad u naxsan ayaa waxa ay daawanaysay dhaawacii Blaka oo daloolay, iyadoo markaasi indhaheeda hortooda ku caafimaadayaan. Sida ay u egtahay waxaan dareemayaa inaan fiicnaan doono. Diana oo aad u naxsan ayaa ka gadaal u baxday, sidee macquul ku tahay? In ka badan 150 sano ka hor ayaa waxa ay qabtay ciidamada Jabaaniiska, markaasi waxay bilaabeen inay ugu sameeyaan tijaabooyin aniga iyo kuwo kale badan. Boqolaal ayaa la jarjaray, boqolaal ayaa la ciqaabay, kuwo badanna waa la dilay. Aniga waa la ibadbaashay, balse midda igu hartay nolosheeda inta ka dhiman waxay ahayd in jirkayga uu iscaafimaadsiin karo. Markii ay dowladda Ameerika ka war heshay arrinta jirkayga, waa la afduubtay waxayna igu xireen shaybaar dhulka hoostiisa, ayagoo markaasi igu sameynayaan tijaabooyin aan dhammaad lahayn, markaasna waxay rabeen inay ogaadaan sirta ka dambaysa caafimaadkayga. Markii ay dhulka bilaabatay inay kurantana, waxaa la keenay meeshan, ayagoo rabaan inay igeeyaan adduunyo kale si ay markaasi u sii wadaan tijaabooyinkoodii xanuunka lahaa. Yaa tahay ayay weydiisay Diana oo cabsanayso. Aniga Dan Blaka ayaa la yiraahdaa, waxaana badbaadin doonaa dadka. Yaa tahay ayaa cod gadaashiisa ka yeeray, markaasna wuxuu arkay inuu pilotkii hurdadii ka soo kacay, kadibna wuxuu furay albaabkii buundada. Isla markiiba robootyo waaweyn oo hubaysan ayaa soo galay, xabad ayayna bilaabeen inay furaan. Blaka horay ayuu u soo baxay, wuxuuna bilaabay markaasi inuu xabadeeyo, asagoo kuwo ka mid ah xabadda la helaya ka hor intaysa iyagu ku soo tuurin bambo kaasoo gadaal u tuudhay. Blaka
oo markaasi jirkiisa ay bombadu kala googoysay wuxuu hoos ugu dhacay ilaa iyo 100 mitir. Waa uu dhintay. Ku celi spaceshipkan wadadii ay markii hore ku socotay, ayay dhahday Diana, pilotkiina wuu yeelay. Markii spaceshipkii ku soo cesheen wadadii ku socotay, ayay hoos aadeen oo stasiskooda ayay ku laabteen. Kadibna xaggaas ayay hurdeen bilooyin badan ayagoon hurdada laga qasaynin, markaasna waxay rabeen inay gaaraan adduun cusub oo nadiif ah si ay nolol cusub u bilowdaan. Ilaa laga gaaray maalintii ay bilaabeen dhalooyinka inay isfuraan, dadkiina ay ka soo baxaan stasiska. Kadibna alaarantii ayaa shidmatay, albaabadii spaceshipkana way furmeen. Dhammaantoodna waxaa soo jiiday hawadii qaboweed ee cirka, dhammaantoodna cilladaas ayay ku dhinteen. Kadibna Dan Black wuu dhoola cadeeyay asagoo markaasi dib u leexinaya spaceshipka oo ku leexinaya wadadii ay dib ugu laaban lahayd dhulka.